الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دمان أرتدك فايدة سنة عشرة. إن شاء الله وعاو حنا لكم قبل بنا عشر كني كواد برشة كمبيوتر عشر كاس أو كوس سابسن هردع بدن كيسنا أو بدن تيوري أو لو بهن يقف كون مركواد فهم كود كهستو كمبيوتر casharada inta kale ama koorsooyin kale way inoo duwan yihiin dhammaantood kuwa dambe laakiin inta ugu hooseysa basicska ayaan caawa duubay sida ay sababtay in naga raago waxaan ka bilaabaynaa computerka ugu horeyn inaynu horta isla eegno what is the computerku waa maxay in isla eegno waxyaalahan isticmaalayo wali waxa dhaxoseeya ma aha oo runtii dee waxaynu gaadhnay maaha laakiin waxaan u dan leeyahay samuurad ahaan inaan isticmaalo halkaas waxaan ka bilaabaynaa what is the adigan ku weydiinaya marka koowaad computerka dee qof kasta wuxuu u yaqaano uu sheegi karaa laakiin generally waxaan ku qeexi karaynaa tan waxaan ku soo koobaynaa qeexida computerka inagoo raacinayna sharaxaada bal isticmaalkiisa ugu horeyn computerku waa aalad ku shaqeysa koronto waa electronic automatic machine marka waa machine ama hawl fududeeye si daran dooriyo u shaqeeyo oo macnaheedu waxa weeyaan automatic wax laga wadaa haddii tusaalahan badhanka halka ku yaala aan jagsiyo automatically waxa soo boodaya wixii lagu sii faray ama la sii baray berigii la programiyay computerka ama programka uu ku shaqeynayo Windowska la sii baray halka hadduu qofku taabto in waxaas uu soo baxaan wax walba aynu isticmaali doono markaa waxa ay xambaarsan yihiin wax stored instructions haddayna inagu abuurin laakiin kuwa kale isticmaalayno dhan waxa la isticmaalayaan instructions hore loogu sii keydiyay ayay ku shaqeynayaan marka jagsiyo macnaha in waxa soo baxo hore ayaa loogu sii programiyay marka si automatic ayuu u shaqeynayaa oo meel walba aad jagsiso ama wax walba aad u dirto si automatic ayuu jawaab uga soo saarayaa intuu process gareeyo waana aalad koronto ku shaqeysa marka waxaan kusoo koobaynaa intan qeexidiisa computerka waxaan leenahay waa machine hawl fududeeye si daran dooriyo u shaqeeya oo koronto ku shaqeeya in which kaasoo we can actually save data into kaasoo aynu xaggiisa xog ku kaydsan karno and then retrieve and then easily retrieve data from sorry intaan ku dhadaro marka intaa kadibna markaynu ku kaydino aynu si fudud uga helo xog xaggiisa marka tan waxay inoo sheegaysaa shaqadiisa ugu muhiimsan ama sababta computerka loogu baahan yahay inay tahay in uu computerku awood inoo siiyo in aynu si fudud wax ugu ridano isla markaana si fudud wax uga helo tusaale ahaan haddii buug wax ku qorano ama nidaamkaynu isticmaalaa uu noqdo hard macnaheedu waxa weeyaan waa laga yaabaa inay iska fududaayeen wax la qorqoro laakiin sida lagu helo ayaa adag marka computerku wuxuu ka dhigayaa si fudud sidoo kale bini aadanka marka aad maskaxdaada wax ku kaydiso wax laga yaabaa inaad ilowdo ama hore ay u keydin weydo si fudud ugu xiriin karaysid maskaxdaada inaad wax qaybsiiso aad ilaa ku celceliso laakiin computerka si fudud ayuu ku qaadanayaa si fududna uu ku soo celinayaa xogtii marka computerku wuxuu muhiim ka yahay dhammaan meel walba oo waxa weeyaan shaqo taalo qofku haddii aanu lahayn aqoonta computerkana wuxuu ka dhigan yahay dubihii oo aan markaa lahayn maxaan ku yiraahday daab marka dhagaxa ma jijibin karayo macnaheedu way aqoon kasto kale ha lahaado waxa loo baahan daabkii in la geliyo daabkiina marka wuxuu noqonayaa computerka inta hadan kaga baxno qeexidiisa computerka waxa loo kala saaraa laba qaybood qaybta computer ayaan dhahno computer waxa uu noqonayaa two parts ayuu noqonayaa labadaas maxay noqonayaan waxay noqonayaan wax kale maaha waa kow iyo laba qaybood ayaynu kala saaraynaa computerka qaybta koowaad waxa la yiraahdaa hardware qaybta kalena waxa la yiraahdaa software
okay intanaad fahanto waxay ka caawinaysaa inaad noqoto qof faham fiican ka haysta computerka intana si fiican ila fahanto halkan hardware waxa laga wadaa waa physical equipment of computer marka hardware macnaheedu waxa weeyaan waa qalabka dusha ah ee aad arki karto ee computerka ama physical equipment of computer haddaan tusaale soo qaadano hardware-ka cidda baratay ama ku tiraahdo ama aad maqasho cid baa hardware-kan bartaa iyo wixii la mid ah waxa uu baranayaa ciladaha farsamada cilad saaridda iyo maxaan ku dhahaa qalabka shaqooyinkiisa noocyadiisa iyo wixii la mid ah ayuu qofkaasi baranayaa way macnaheedu marka qaybaha tusaale aynu soo qaadan karno oo mar walba aad arkaysid ayna tahay inaad aqoon u lahaato mar walba magacyadooda aad uma badna waa inta dusha ah haddii aan nagu ujeedkeenu maaha inaynu hardware barano laakiin waa inaynu computerka iyo isticmaalkiisa iyo ku shaqayntiisa fahno sidaa daraadeed hardware-ka dusha aad ka arkayso waxaad arkaysaa wax la yiraahdo keyboard halkaas arba ka dhiiba ka dhiman sorry marka waxa weeyaan keyboard waa inuu yaallo mouse waa inuu yaallo marka monitorku waa dhalada ama qaybta wax soo bandhigaysa muraayada tan aad arkaysaan iminka ballaaran ee xaggan taal ayaa monitor laptopka u ah ama display screen u ah laakiin computerada waxa weeyaan system unitkuna ama qaybta maskaxda iyo wax walba ay ku jiraan gaar bay taal monitorkuna ama muraayaduna gaar ayay taala computerada xafiisyada keyboardku waa kan wax lagu qorayo xarfuhu yaalaan mouse-kuna waa selection device-kan isticmaalayo iminka markaan wax idin tilmaamayo tusaale ahaan mouse-ka aan wax ku jagsiinayo ama ku soconayo waxa weeyaan device isaguna mar walba aad isticmaalayso oo la yiraahdo mouse marka qofku waa inuu aqoonsan karaa basically halka ugu hooseysa qalabaadka waa inuu garanayaa magacyadooda iyo mid walba ujeedkeeda marka monitorku waa inay wax soo bandhigto xogta system unitku waa processingkii maskaxdii storagekii wax walba ayaa ku jira keyboardka waa input oo waxbaa lagaga xirayaa qoraalka iyo waxaa qorayso in computerka lagu xireeyo mouse-ka in wax lagu doordoorto ama wax lagu save gareeyo macnaha lagu dhex socdo computerka ayaa loogu talagalay waayahay qaybtaas marka iyada halkaas kaga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa wax loo yaqaano software-kii wuxuu noqonayaa laba qaybood isagana waana tan muhiimka ah in khusaysa ee course-kan uu kasoo dhex bixi doono way halkan ay kasoo dhex bixi doono waxaa jira markaa software-ka labada qaybood mar walba ay tahay inaad fahanto waxa weeyaan maadaama qalab badan aynu sheegnay iyo wax kusii hoos jira oo loo yaqaan hardware dee kaligood ma shaqaynayaan waxba ma tarayaan wax iska dansanayay noqonayaan marka computer bilaa software waa qof dhintay oo kale jidhkiisii lugihii iyo wejigii iyo gacmihii iyo wixii bay iska yaalaan laakiin aan shaqaynayn laakiin software waxaa loola jeedaa waa laba qaybood ayuu noqonayaa waa program waxa weeyaan ama macluumaad iyo wixii la mid ah oo gudaha computerka ku jira oo ka shaqaysiinaya waxaas oo dhan waxaa la isku dhahaa software marka software-ka ugu muhiimsan ee meesha aynu soo qaadanayno waxaa la yiraahdaa qaybta koowaad OS ama operating system ayaa loo soo gaabiyay OS operating system waxaa loo yaqaanaa oo kale system software iyo application software okay system software waxaa loola jeedaa waa qaybta marka hardware-ka la xidhiidho oo la isku dhameystiro waa waxa keenaya meesha aad wax ka arkayso tusaale ahaan halkan wax line-ka kan mouse-ka kan startida tan waxyaalahan oo dhan waa system software-ka ayaa sahlaya system software-ku marka waxaynu oran karnaa waa qaybta ka shaqeysaysa computerka waa software used to run the computer waa software loo adeegsado si computerka looga shaqeysiiyo tusaalaha ugu muhiimsan maxaan ku raadayay wadankeena mar walba yaala ee lagu isticmaalo waxa loo yaqaanaa Windows marka Windows hadaad maqasho waa qayb software kamid ah oo la yiraahdo system software waxaana shaqadiisu tahay inuu ka shaqeysiiyo computerku inuu noqdo mid la isticmaali karo programo kale lagu shuban karo iyo wixii la mid ah waa naftii computerka guud ahaan intaasan kusoo koobinayada
windows oo kaliya ma jiro oo waxaa jira maxaan ku yiraahday mac baa jira operating system isna noqonaya oo apple ay isticmaasho waxaa jira maxaan ku yiraahday hadii la idinka leeyahay aad u badan yihiin linux baa jira unix baa jira iyo wax badan marka laakiin inaga waxa ina khusuusiya oo computer walba tagto xafiis walba tagto ma arkaysid kuwan laakiin waxaad arkaysaa waa windows kuna version kala duwan ayuu kala baxaa wuxuu noqdaa windows 7 windows 10 windows 11 windows 8 iyo wixii la mid ah iyo kuwii ka soo horeeyay xp la oran jiray iyagoo laakiin imka aan suuqa laga helayn xagan waxay noo yaalaa marka qaybtaas waa qaybta koowaad ee software-ka marka mar walba ardayga ama qofka kan computer-ka sheeganaya inuu aqoon u leeyahay waa inuu fahansan yahay in qalab uu jiro loo yaqaan hardware waa inuu jiro software-kaas oo laba noqonaya macluumaadka aan la taaban karin laakiin shaqeynaya marka wuxuu kala baxayaa system software ama operating system oo marka windows ku tusaale ka yahay mac tusaale ka yahay linux tusaale ka yahay kuwaas oo loo yaqaano operating system macnaheedu yahay inuu computer-ka ka shaqeysiyo ama nafti computer-ka okay aan u nimaadno qaybta labaad ee software-ka oo loo yaqaano application software sida magaciisu sheegayo wuxuu inoo sheegayaa inuu yahay wax loo isticmaalayo ama application isticmaal oo kale marka qofka user-ka ee adiga aniga cid kasta oo computer-ka wax kaga xidhan yihiin ama isticmaalaysa waxay u baahan yihiin application si ay shaqooyinkooda u fududeystaan application-ku naf uma noqonayo computer-ka oo application-ku waa wax aad release karto ku shubi karto computer-ka laakiin windows-ku waa base-ka koowaad ee computer-ku ku shaqeynayo application software-ka muhiimka ah ee inagu course-ka aynu qaadanayno waxa uu noqonayaa Microsoft Office marka Microsoft Office waxa weeyaan waa xidhmooyin program ah ama buug ah Microsoft Office kaas oo ka kooban ilaa 6 program oo mid walba uu ku takhasusay shaqo gaar ah tusaale ahaan program ayaa wuxuu naga anfacayaa sida aynu wax u qori lahayn mid kale application kale wuxuu naga anfacayaa sideen wax u xisaabin lahayn marka tusaalayaasha ugu muhiimsan ee course-ka inagu aynu qaadanayno waxa la yiraahdaa horeyran waxa la yiraahdaa application softwares ayaa la yiraahdaa application softwares na qofku ma isticmaali karo ilaa uu fahmo nafta computer-ku sida uu shaqeyso ama windows-ku sida uu shaqeyso sida daraadeed casharkeena ama course-keena koowaad wuxuu noqonayaa windows marka waxaynu galeynaa application softwares-ka khaasatan program course-ka loo yaqaano Microsoft Office kaas oo ka kooban xidhmooyin buug oo ay ka mid yihiin intan oo kaliya ay course-keenan online-ka insha Allah ka koobnaan doonaa inta taas waxay noqonayaan Allahumma salli ala Muhammad xagaan waxaynu soo baranaynaa word kaas oo loogu talagalay si loo qoro qofkan bartay word-ka inuu qoro nooc kasta oo academic letter ama papers books wax kasta oo qoraal caadi ah ama formaad walba warqad walba qaabkeeda inuu sameeyo codsiga CV-ga maqaalka iyo wax kasta oo markaa journalka wax kasta markaa qoraala inuu sameeyo taas markuu dhameeyo oo aynu dhamaado waxaanu galeynaa MS Excel oo aynu isticmaalayno inaynu ku maamulo waxa weeyaan wax kasta oo fikir ama waqti qaadanaya khaasatan aad wuxuu ugu taxalluqaa analysis-ka iyo wax kala saaridda iyo xisaabaadka iyo maamulka iyo xogta oo la si fudud looga heli karo iyo tabulation-ka ama shaxaynta iyo reporting-ka iyo waxyaalo badan ayuu naga anfacayaa marka kaas ayaynu ku xijin doonaa insha Allah waxaynu ugu xigayaa MS Access oo marka aynu ku sameynayno simple database zero fudud oo marka uu xafiis xog ku maamuli karo isagoo isticmaalaya qaybo kala duwan format fudud oo marka report-ka soo saaraya oo wax walba inaynu inagu abuuran karno sidoo waxaanu ugu dambeyntina ku soo gabagabeyn doonaa course-keena Microsoft PowerPoint markaas waa presentation-kii oo marka qofku hadduu seminar qabanayo hadduu training qabanayo hadduu wax walba sameynayo waa inuu aqoon u leeyahay PowerPoint marka guud ahaan course-keenu viewpoint-ga ama inta aynu ka qaadanayna waa intaas insha Allah session-keena koowaadna waxaan ku soo koobayaa intaas
waxaan rajeynayaa wixii su-aalo in lasoo weydiiyo. halkana waxaa ka imanaya su-aalo, waayo macluumaad aada u badan ayaan soo koobay oo markaa loo baahan yahay qofku inuu bid by bid u dhuuxo oo mid walba uu markaa hadhowti si xor ah uga jawaabi karo qodob kasta oo ka muuqda meeshaas, sharixina karo adigoo kaashanaya macluumaad dheeraad oo aad raadisay iyo intii aada codkeena ka maqashay. halkaa ayaan kusoo gebagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.